Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. War weynu isku daalay danba waynu u kala nasanay soo dhawaada. Barnaamijkeennii jacaylka bersamaadka qaybihii ugu dambeeyay baynu ku jiraa. Laga yaabeeba inay qaybtan ugu dambeyso, laakiin dib baynu ka ogaan doonaa insha Allah. Waxaynu marnay heesta 46aad, magaceeda waxaa la yidhahdaa Ras. Description-kaad ka akhrisan doontaa haddaad codkaygan fahmi weydo ama uu ku soo gaari waayo. Halkaa igala soco. Waxaana ka dhici doonta waxay leedahay xalaan kugu riyoodo reemay aawada oo inagoo kofraysliyo joogna meel ramaas badan aan la raaci dhaya. Ruuxduna maqsuudo raaxaan jirin ku mirato 100 jeer rogato rogagaygu dirmeen. U riyaaqay beenoo dabadeed runtii iyo rasmigii celiyo u rukuucay weynoo rabbi kaa duraansaday ducadiina raaciyay inaan reer yagleeloon raas noqono meel yaal. Roonay la'aantaan rageed ma noqon karo garta la isku riixay rogcadaagu joogana waa la igu reebaa. Inaan kula rafiiqana rajadayda weeyo ra'yigaygu igu amar inaan adigu raadiyo. Kuuna soo rucleeyo raafyaro ma dhaadine raysin kuu diyaarsho u rukuucay weynoo rabbi kaa duraansaday ducadiina raaciyay inaan reer yagleeloon raas noqono meel yaal. 47 Liibaan Jacayl. Labadii jacayl intiisa raba waa inay luur iyo leeleer filaan. Waxaan bilaalin geexa ileen lama lulee ladanay kalsoonidu waa lacayn. Ilaahiye axdina waa lama huraan haddii kale lafta xorka laasimaa. Leexiya hadday laydhiisa baan kululayso caashiqu malalayaab. Aan kuu laqbeeye liidka iyo laangaabku waa loofka kaan aqoon. Loofarkuna ka daran oo waa laqbiyo ruux u liicay kii ku lifaaqa been. Ana laxawga iyo waxaan igu lamaan uma liicayo liibaan jacayl iyo labankii uu caashaqu lahaa waan laaciyo mar waan kuladi. Tawsiya ladnaan 48. Maalmihii tagayoo wallee si dhaba baan idiin tago waxaad ku tallaalanteen xubnaha togan ee jismiga. Inaad idinkoo tolmoon timaadaan jeer labaad ayaan tuugo rabbiga taageeran ka dhowraya. Waxaan u tallaabsadaa taarkiya dhib u mudanaya inaan libta taabto oon qayrkay tuuron xamdiyo. Waxseen u tanaasulaa saaxiibada turqaya tusaalaha iyo ahayn ku taagnahay sababahood. Waryahay tawsiya ladnaan midkay tahay waa inaad ka dhigataa toobiyood la tiicdaa nolosha adag. Duruusaha lagu tarmee tookhya faan kaba dhalaa waxay ku jiraan tubtay waxyeeladu taagan tahay. Ha yeeshee waan tartami intay tamartaydu tahay naftana taash baan u gelin. Heesta 49aad Naruuray sidii roob biyo dhigay nugaal iyo nawaaxiga dalkaygaad niyadayda deeqdaa. Ama meel nabaadoo naqucaw u yahay oo nooluhu xamdiyaa dejisaa naftaydani. Niyaddaa ku jeceloo nabdigaa ku ogoloo naxdin iyo xumaan iyo namar kuma quudhee. Naruuray sidii laac Norway ka baxay iyo Nayruus iftiimaad nalka igu deeqdaa. Ama geed nadiifoo midho noocyo badan loo nabana ugbaadaad nasiisaa qudhaydani. Nimcaa tahay asluub loo naxli laga ilaasho nacnac laga masaalo nasabaad ka dhalatay. Naruuray adduunyada inta aan ku noolahay. Naruuray adduunyada inta aad ku nooshahay inaan kugu nabnaadoon kaa weero nacabkiyo nacaskiyo dilaaga nidar kugu mariya. Waxaynu soo soconaba heestii 50aad baynu soo gaarnay. Magaceeda waxaa la yidhahdaa Hooyadii Caashiqa. Waxay leedahay hamigaygan jacaylkan haleeyay hawadana igu daray sida haadda dawo aan u helay i habaysa bal halkii ka daya baan hagaagsan. Haweenka dunidiyo hablahoo dhan haddii aan taydii la ii haybin ka hagooga dadow halistayda. Ninkaasi waa dhaarsan yahay moogta adduunka rogaya buu leeyahay haddii aan taydii la keenin. Meel habaasle qofkii ku hayaama meel hadhoodogana ka huleela haatuf aan jirin baa hoday kaasi heyinkiisa midkii marayo hadh. Hooyadii caashiqeen u hidoobay haraad bay ibadee bal hadeerto halqiyow aadoo soo hogaansha. Howlkii caashiqa ku horeeya waa midkii hawraar hibladiisa hantidaa qaabkeed ku habsiiya. Anna hogashiyo roob hilaac muujay sidiisaan u hadhayn hurintayda yartii aan ku hirtay huqda baaja.